السلام عليكم داودي وقيبتي اللباد ee xigmadihii Adham Sharqaawi labada qof ee kala tagay ma aha inuu madaxumaa ee waxa la soo gaaray dhamaadka jidkii ay ku socdeen inuu qof noloshaada ka baxa ma aha dhamaadkii ee waa dhamaadka qaybtii isaga la xidhiidhay noloshaada suugaantu si kastoo ay kala duwan tahay waxay ka faalootaa culaysyada dadka dareemadooda iyo riyooyinkooda mana jiro hoobar wax u qora inuu wax qoro in xarfaha eraya laga tidco erayadana weera laga sooho ana ma aha ujeedka suugaanta ku kalsoonow hadduu ilaahay khayr kula maago in uu kugu soo dhiibayo ama uu ku soo xiro gelinayo xataa cadowgaaga ilaahay dawladda gaalada ah ee cadaaliga ah ayuu uga heliyaa dawladda muslimka ee daalimada ah haddii aad ka takhalusi kari weydo macsiyada wanaag ku go'doomi dun wanaaga waxaa ka mid ah inaad indhaha ka laabato dhacdhaca dadka kale haddii aanad ka dhab sheegi karin waxa aad u holato ha istaalinin meel kastood ilaahay ku caabudaa way ku marxaati kacaysaa meel kastood ilaahay ku caasidaana way kugu marxaati furaysaa marka badso marxaatiyada aad doonayso inay ku bataan caanimo inaad ku hesho wax qabadkaaga waxa kuugu filan inuu ilaahay og yahay mararka qaar ilaahay wuxuu nolosha kuugu adkeeyaa si uu u maqlo codkaaga adiga oo isaga baryaya dhismayaasha dhaadheer intaan lagu tartamo waa in lagu tartamo dhismaha aadamaha waxba tari maayaan dhismayaal dadkoogii ay ruuxdoodu dhulka muquursanta qofka sababaha ku kalsoonaada isaga iyo sababaha ayuu ilaahay isku daayaa qofka ilaahay ku kalsoonaadana sababaha ujeedkiisii ayuu ilaahay u diyaariyaa diintu ma aha mas'uuliyadda waa ku abtirsi waxayna ku xidhan tahay hadba fikirka aad ka haysato isku aragto qof taabacsan waajibaadka baad gudanaysaa hadaad se isku aragto qof ku abtirsada naftaada waqtigaaga maalkaaga intaba waad u hibeen iskhilaafyadu mar walba ma xuma marar badan waxaynu ogeysiiyaan kaalinta aynu ku leenahay qalbiyada dadka kale waana waxa ugu wanaagsan aynu ka dheef xiriiradu waa sida cuntooyinka noorka oo waxa ay leeyihiin waqti ay dhacaan intaa wixii ka dambeeya hadii la sii wadana waa xiriir sumaysan oo dib waxaan ahayn lagama dheef